يعني قفر بنو كريستو ما العكس قالي أمس وحلا لا أبوده والله إني هو قول كانوا كلا هدرتنا قول كانوا قالي سواي booking.com ريت كجرا $400 a night ها هبينكي حد مال جلسة نتورك هذا إنجليز هذا يو نتورك is your network مرة بالنتورك هذا إذا كان برناسي quality people مال جلي تكله surrounding هذا كل جو صحيح بدأ حديو بنوني كاشي كنا دورنا لك كاشي كنا ميسي none of them matters to you that كمان تسكوا عادي ربنا successful نقطة جناح سده رادي that related to that sector kusoo dhawaada wareysi aan la yeelanay ganacsadaha guuleystay ee da'da yar Bishaar Dheere waa dhalinyaro ku guuleystay riyooyinkiisa waxa uu ganacsi ku leeyahay wadamo badan oo ka tirsan qaaradda Afrika oo qaarkood lagu tiriyo ganacsiyo guuleystay soona jiitay qulubta macaamiil badan oo intooda badan ay yihiin ajaanib inta aan gudaha u galin wareysigan oo dhinacyo badan taaban doona bal Bishaar Dheere ha nagu soo wareejiyo laba maqaayadood oo uu ka hirgeliyay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. سيدو برادر أحمد جبا كسودو نيروبي كسودو جيجري لاين فيلس ما شاء الله let's go thank you ماشان وا waiting hall كنا ما شاء الله smaller reception واو هذا أقرب بدنتها وماشان وا lounge dadku sugaayeen ما شاء الله ماشان waxa waa business center كنا qofka client meesha digana scan printer waxa isku sameystaa ما شاء الله waxa waa lounge ko in house guestiga waxaan sidoo kale ka dareemaa afro style culture afro style ha waa african style waxyaabo badan meelo badan kana jira balkaas drumkaas waxaan ka soo qaaday Burundi mara safar ku tagay Burundi waaw ma sha Allah marka qaybtan waa safari theme waa meeshan ku bilownay the whole idea waaw waxaan bilownay xilligii covid-19 ha meeshan ku soo dhawo ma sha Allah meeshan waa dining for in house guestiga qolada maartay qolka degan dining area-dooda waay sidoo kale waa deegaan meesha waa deegaan ha waaw waxay leedahay residential waxaan hoos gareynaa safaaradaha UN-ta dadka experts-ka nearby area degan waxaan u sameynay accommodations iyo cunto meel yar conference ku samaystaan inta waxaan ku sameynay maadaama aniga ahay street graduate streetska bahladana lagu faa'iiday meeshan waa reading area bugaagta ma sha Allah bugaagta best selling books baan soo dhignay xawleena bugaagta zaid oo saabasha ha ma sha Allah maadaama aan jaamacadda fursad u helin street university kuna ka faa'iidaystay yes Allah ma sha Allah qofkan wax bar wax ka wanaagsan qasab muhiim waa because of laba qof aan wax barana adduunka wax sameyn karo ina formal education ina self education lawas noqdo mid kale waa marka aniga self education ka xoog saaray ma sha Allah lounge kala ku yahay wax ka dhex gala inuu ganacsi sameeyo inuu wax barto shahaadaysto ku xirantahay ma kula tahay aniga wallahi mainly dadka ii shaqeeyo kuma xiro degree inay jaamacad soo baxeen sax waxaan ku xiraa experience bas specific shaqada qofka loo rabo inuu u leeyahay experience enough because aniga jaamacad kama soo bixin why will I stop someone else jaamacad inuu ka soo baxin kale I like that inta waxa ku yaala lounge yar oo baalki ah waa outdoor lounge inta waxa noogu yaalo ii sheega meel banaanka lagu cunteeyo oo waxa la yiraahdaa waa lounge kala idana banaanka ah ma sha Allah hello sir hi how are you good good to see you all right yeah we're doing content yeah nice perfect runtii meel aad u qurux badan صح soo dhawo runtii ka dareemaa dhadhanka afrikaanimada afrikaanimada ha because of main clientele kan waxa waaye waa dad dibadda ka yimid oo maaragtay qolkan waxa la yiraahdaa Simba oo best room waaye nice kusoo dhawo Simba wow ha qolkan libaxa la yiraahdaa libax Simba waa libax Simba soo xilo halgo finally I'm in Simba yeah marka qayb lagu shaqaysto leeyahay marka qolalka dhan ma sida u diyaarsan kan kaliya Simba may qol walba xayawaan magaciisu leeyahay Kenya waxay caan ku tahay wax la yiraahdo Big Five he knows probably the Big Five Kenya oo waxa ugu badan adduunka u imaado so qolkan waxa uu magac darnay is the biggest room obviously the taqana Simba waa the mocto waa king of the jungle yes king yes so this is our jungle room our king room musqushiisa watana wuxuu leeyahay a big bathroom wow jacuzzi inside wow luxury yeah the bathroom is literally like another room yeah it's so huge wallah yeah inshallah so yeah nice I like that you can have your jacuzzi there walking area wuxuu heli karaa banaan yar balcony yar qofku view ha I like that يوم شير waxa aad u helay sida uu ilaalay dhaqanka afrikaanimada waqti hadda waxa arkaa geedada jajiro walaatan ya geedada jajiro aad u qurux badan
xaruntan aan joogno waxa waaye waa Gigiri Lion Villa qaybteeda cusub oo Bashaar ka hirgeliyay dalka Nairobi inta meel aad u qurux badan ana aad uga helay space-ka iyo sida wanaagsan ee loo qalabeeyay qaybtan waa qaybta koowaad meen qaybta labaad waa xarunta cusub lounge waa meesha lagu cunteynayay dining area for the in-house guest lounge kan waa kana la fariisana ma sha Allah we have a lot of art creativity the bookshelf this one is different اقرا you know what اقرا means read the first word of Quran conference room kan waa kana wow yeah nice conference room nice mid kale yar inta ku sii yaalo another one here perfect maqaayada banaan ku taalo banaanka waa maqaayadii soo kan marka theme-ku uu ka duwan yahay صح wuxuu ugu duwan yahay kan waa modern waa ka casirsan kan waa modern marka qoraalkan qof rabo inuu kireysto ma lacagteeda qaali ama soo wax la awoodo wallahi niyahow qolkan oo kala hadirtan qolkan ugu qaalisan waaye booking.com rate ku jira $400 a night habeenkii wax oo igu soo ordma wallahi expensive yeah bad qofkii ilaahay wax u dhiib waa baxsan karaa كم طبعا ما يودي انت عليك هذا وجد هذا سلفني هيسته انا ماشي انا مدحوينه انت كا بس قفك انت قبصده waxa waaye meesha ma soo madax ka بشار اسمه ما سنه ku qaadatay inaan dhisto xaruntan meeshana waxa noo qaatay 7 months 7 months yes sir xamlina waqti kooban laakiin sidoo if you figure it out when you do this the lights come up marwalba atlaab qaado nalka waa iftiima wow hal fikrina ku darsanaa music ma mari karaa piano and the like dadka loo raaxan lahaa aan marka hore ogaano waa kuwan Bashaar Dheere Bashaar waa nin dhalinyaro Soomaaliyeed oo hal abuura entrepreneur ganacsade book waxa jira la sell with story marka mar walba ganacsi waxaan ku lifaaqaa story wax mar walbana aan maaragtay uga hadlay story waxa waa inspiration of sameeyo waayo Soomaaliya hadaan nala yaqaan inaan ganacsatanahay marka Bashaar waa nin dhalinyaro story unique leh waxa unique iga dhigeen waxa weeyaan anoona wax baranin oo formal education helin inaan nolosha meel iska soo saaray alxamdulillah marka Bashaar waan dhalinyaro oo hasla ah self made hustler street graduate wadooyinka wax ka bartay perfect marka waxaan dhigi karnaa in short nin Bashaar waan dhalinyaro oo ganacsada oo jaamacadaha wadooyinka jaamacadda way arag siyaad barallaan xariis mar baa laga sheegay jaamacadda way arag nin jaamacadda way arag soo qalin jabi oo ganacsan dhigi karnaa jaamacadda wadooyinka dadka wali qaar kood waxa laga is weydiinayaan marka ma u sharaxi kartaa jaamacadda wadooyinka sida isku fahmaan streets waxa weeyaan waxna waa theory schoolka lagu bartaa nolosha waxna waa practical indhaha ku arkaysa soo marka safarto wax badan oo ku cajiib galiya nolosha ku arkaysa marka qofka markuu curious yahay inuu wax barto ama wax uu create galiya ama hal abuuro noqdo wax badan oo dreamka kugu jiro related ku arkaysa marka mar walba jaamacadda way arag way furan tahay all the streets waa ka buuxin waana free لكن هذا يكون حرنت أنا قالت هنا ماركتي ستريت نمو دم مرة ولا نقطة. شهر حنا أنا وهذا هالكوك كسب بلا سفر كاجا هلا أبورك ما جرت بوينت عليك تطلع مركز ولا شيء أنا هلا أبور سميه. والله بوينت يقول رسوله هذا background كي background كي was very humble الحمد لله وهو background آد ودي بدن أو ماركتي علوس الحمد لله background كأسجع يدي مركز كأني أوينا waxay ugu abuurtay inaan noqdo qof career-kaas ka bixin lahaa situation-ka iyo xaaladda ay ku jireen kuma riyo inaan ganacsada noqdo weyn ama aan adduunka maanta intaan wadamo marayaan maro 60 plus countries laakiin dee mar walbo waxaan ogaa inaan dream weyn rajo weyn iyo riyaba weyn aan nolosha ka leeyahay waxaan aaminsanahay inaan wax badan samayn karo marka hoos baan kasoo bilaabay laakiin waxay u dhalatay background-kii noloshadii aan kusoo korayay family-kii reflection halkaas kasoo bilowday ما شاء الله dadka inta badan waxay bilaabaan man ku guuleystaan inta badan marka maxay isdhigi kartaa waxyaabaha ku guuleeyay ama waxyaabaha ka saaciday in businesskaada ku guuleysto 1 2 3 maxaana la wadaagi kartaa maama waxa jirta dhahayso if you don't know where you heading every road will take you haddaad garanay meel socoto wado walba ku geynayso
halka wadada aan raacay oo aniga mar walba ana ka leexan waxay ahayd hard work and dedication. Number 1 inaa ilaahay tala saartay oo ilaahay aamin inuu gaarsiin karo meesha maanta gaaray iyo hard work and dedication. qof walba waxa iga weydiiyay ma samayn kartaa ma samayn kartid suurtagal maaha aan dhageysan only listen to myself iyo in kay qalbigay wax ku jiro inaan daba galay dedication iyo hard work iyo mar walbana de of course wixii waqti badan la galay waa beer hadaad abuurto maanta wax yar aad meel qayb yar ka abuurto intii ma ku soo baxayso hadaad wada abuurtan intii ma ku soo baxayso صح intuu abuurto helaya marka dedication iyo hard work iyo commitment despite challenge ee nolosha ka leedahay maanta oo dhan situation reason nolosha ku sinaysa aad uga baxdo hadana waxaan isku day mar walba inaan give up gareyn insha Allah